fanaanka Soomaaliyeed Xasan Nuur Sayid oo loo yaqaano maanta iyo kooxdiisa la yiraahdo The Urban Nomads ayaa la filayay in toddobaadkan ay bandhig faneedyo toosa iyo seminaaro ay kaga qayb galaan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. laakiin waxaasoo dhan waa la baajiyay kadib markii fanaanka ay ka soo daahday fiisihii uu Mareykanka ku soo gali lahaa. kooxdan oo ka kooban 5 qof oo oo kaliya uu Soomaali iyo Muslimba ka yahay ay afartii kala heleen fiisiyaashoodii, laakiin isaga laga haystay muddo badan, taana ay keentay in ay baajiyaan safarkoodii maadaama uu yahay hogaamiyaha kooxda. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa fanaanka ka wareystay ka baaqashada bandhiga Minnesota. waxa dib u dhaca u keenay waxa weeye aniga oo fiisadii Mareykanka lagu xanibay. maanta waliba waxay ahayd inaan joogo aniga kooxda inaan joogno gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. walina waxaan joogaa London. waana baaqanay barnaamijyadiina loogu talagalay inaan ka qayb galano kulli waa la cancel gareeyay. maxaa keenay markaa inaad dib u dhacdo? waxa keenay in aniga fiisadii lagu xanibay aniga oo wata baasaboor Ingiriis ah, kooxdeydana intooda badan ay yihiin ajnabi, aniguma ka Soomaaliya kana mataqaanaa Muslim. iyaga waa la siiyey laakiin aniga fiisadii wali waa lagu xanibay, iyaga si degdeg ah loo siiyey. tanba kule waa dhibaatada maanta ka jirta dadka raba inay Mareykanka booqdaan. waxaana maadaama ay ummadda Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliya lagu daray 6-7 wadan oo kale oo fiisooyinka aanu ku jirin. marka xataa haddaad wadatid baasaboor ama sharci kale weliga waxaa lagu mataqaana waxaa lagula dhaqmayaa qof Soomaaliya. horena waxaanu idhi ama baasaboor Ingiriis wado ama sharciga Mareykan wado kulli markasta waxaad ahaan doontaa Soomaali. waa gartay waxa ugu weynay qofka aan ka zuuleyn Soomaalinimada iyo Muslimnimada haddii maaragtay Soomaaliya u dhashay. waa gartay xafladaad qaban lahayd iyo baaqashadan ku timid iyo maaragtay saameynta ay ku yeelanayso kooxdaada haddaad noo faahfaahiso iyadana. barnaamij wuxuu ahaa waqti dheer la diyaarinayay oo mataqaanaa kharash badan iyo fikrad badan iyo mataqaanaa awood badan ay gashay, oo xataa sanad baa la balangareynayay. 12 barnaamij ku ahayd inaan ka qayb gallo oo ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan iyo ummadda ay la degaan aan soo bandhigi lahayn. maantana wixii oo dhan waxay noqotay dee kacbay noqotay. kacbana waxaa keenay waxa weeye cunsurinimada ay ku dhaqmayso maanta dowladda Mareykanka. waxaa haddana aan rabaa inaan halkan ka dhaliilo dowladda Soomaaliya oo mar dhaweyd joogtay wadanka Mareykanka oo aanan arrintan ka hadal. maanta anigu fanaan baan ahay, barnaamij jir baan u socday, laakiin arrintan waxay saameynaysaa ummad badan oo Soomaaliyeed oo ama dad waaweyn oo liita. marka waxaan aad uga xumahay inaanay dowladda Soomaaliyeed markii dhaweyd ay tagtay Mareykanka aanay ka hadal. waa gartay marka waxaad leedahay waxa la igu sameeyey cunsuriyad oo waxa kaliya aan tuhmayaa oo fiisaygii dib u soo dhigtay mar haddaan 2 jeer hore Mareykanka u imid barnaamijka ku qabtay marka saddexaadna ciladani qabsatay. waxa kaliya tuhmaysa waa cunsuriyad lagu sameeyey iyo barnaamijkii xayiraada madaxweynaha Mareykanka ku soo roga dalka. cunsurnimadu way iska caddahay, waayo aniga oo kamid ah 5 qof oo kulligay baasabooro mataqaanaa wada European ah ayaa aniga laga socday. aniguna waxaan ahay qofka kaliya ee Soomaaliga ah. taasna waa arrin iska cad weeye cunsurnimadana halkaas ka jirto. laakiin ummadaha kale imika tusaale haddaan ku siiyo listigan waxaa ku jiray dowladda Suudaan. dowladda way ka hadashay, listigii waa laga saaray. waxaan aad uga xumahay inaanay dowladda Soomaaliyeed weli arrintan ka hadal. sidaan hore u sheegay dhibaatadani waxay saameynaysaa ummad badan oo